آله وأصحابه أجمعين ما بعد marka hore ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala marka xiga waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay soo dhaweynta wanaagsan ee qiimaha iyo qaayaha leh ee gobolka Saraar gaar ahaan caasimadda Caynaba ay ku soo dhaweyseen madaxweynihii qaranka iyo wafdigii ballaadhnaa ee uu la socday waana sidii la idinka filayay madaxweyne gobolkan oo aan ka mid ahay wasiirada maartay gobolkan aan ka mid ahay waa gobol indhahaga aad ku aragtay sida sharafka leh ee gobonimada leh ee hadalka ay u korkaxaadiyeen ee dan mooyaane aanay wax kale u baydhin waana dee la tartamaya gobolada gobolkan imanka soo dhaweynta xagga madaxweynaha iyo hadalka sharaf kale ee halkan ka baxay labadaba horta baa tihiin xaggii kalena codsigii aad halkan aad dalbateenna dee madaxweynahana maqashiise annaguna waa haddii alla kadhi waa dabagelaynaa madaxweynahana arrinta codsiga haddaanu nahay wasiiradii ka soo jeeday gobolkan waa kula jirnaa waanu mudan yahay baaxadda uu leeyahay iyo shacabka kala duwan ee ku nool dhammaan qabaa'ilka reer Somaliland waa meel ay isugu yimaadaan oo kala duwan min laga bilaabo ceegaag ilaa iyo oog ilaa iyo yacni halkan saddex waxa weeye degma iska raacsan xaggana saddex waxa weeyaan waa dee gobol baaxaddaale weeye oo qaadi kara waana gobol iminka sidii halkan warbixinta lagu dhiibay hadda cashuurtii kor u qaaday oo waa gobol wax soo saar marka taana waynu kordhinaynaa waayo reer Somaliland iminka waxaa lagu tartamaa wax soo saarka lagu tartamaa haddii aynu xoolaa dhaqan jirnay dee waa inaynu ku darnaa wax kalena waa inaynu ku darnaa macdantii iyo beeyadii iyo batroolkii iyo beeraha aynu bilaabayno iminka insha allahu tacaala intaba waynu ku daraynaa waxaa kaloo iyaduna jirtaa dee weel walba waxa lagu rito unbaa horta lagala baxaa madaxweynaha waxaynu u xambaarinaynaa meel kasta u yimaado madaxweyne baahidaasaa jirta kaa kalaa jirta laakiin dee waxaynu ku ridanay ee aynu cashuurihii aynu ururinay iyo wixii aynu urursanay ayuun baynu horta dib u qaybsanaynaa caawimo kale oo meel inaga soo gelaysaa oo waddan la ictiraafsay oo laleeyahay waddankaa waa la ictiraafay ama dayn siiya ama caawimo siiya horta dee ma nihin madaxweyne gobolku waa gobol hadda dadku ay midaysan yihiin guddoomiyahana si dhow baanu saaxiib u nahay oo had iyo jeer aale waanu iska waraysanaa waa guddoomiye runtii u jajaban maaragtay gobolka oo ay aada ugu baraarheen ammaan badanna iga soo gaadhay isaga iyo howlwadeennada kale ee gobolka degmada iyo heer degmo iyo heer gobolba ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala nabadgelyada iyo barwaaqada iyo amniga caawaba aynu ku fadhino in ilaahay inoo siyaadiyo madaxweynihii mar hadduu inoo yimina waa inoo duceeyo mar labaadna waa inoogu celin doonaa waliyul amrigu mar hadduu duceeyo safarna uu yahay oo uu maanta raxmaadkaa inoogu duceeyo ilaahay wuu inoo aqbalayaa subxaanahu wa tacaala ilaahayna waxaynu ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala in uu ilaahay raxmaad waasaca oo dhammaan dalka oo dhan khaas ku ah muslimiinta kale oo dhanna caamku ah ilaahay ha inoo shubo ilaahay saasaynu ka baryaynaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala amnigaa iyo iimaankaa ilaahay uu ina siiyey ilaahay haynoo taabud yeelo oo haynoo sugo ilaahay waxaynu ka baryaynaa dadka wixii buka ilaahay ha shaafiyo ilaahay waxaynu ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala dembigeenna iyo dembigii waalidkeen iyo dembiga ummadda muslimiinta o dhan allah ha dhaafo
maytaadkeenina allah u naxariisto cirkana madar khayr qaba allah inaga siiyo ilaahay saasaynu ka baryaynaa madaxweynaheennana iyo madaxda kale qarankana sharaf iyo karaamo allah u ziyaadiyo ilaahay saasaynu ka baryaynaa waxaan aad iyo aad iyaga ugu mahadnaqayaa cuqaasha iyo salaadiinta iyo waxgaradka gobolka oo runtii u taagan mar walba inay nabadda ka shaqeeyaan oo volunteer ah waa ogyahay madaxweynuhu aad iyo aad buu arrinkaa had iyo jeeraale uu uga hadlaa waa dee qayb ka mida dowladnimadii weeye oo waa wasaaraddii arrimaha gudaha ayay ka shaqeynayna habeen iyo maalin insha allahu tacaala wixii inaga dhimanna bilaa buuq bilaa mashaakil ayaynu ku dhammaysan doonaa oo aynu horumarkeena ku wadi doonaa keliya aynu ka dayno dowladnimada weliba beesha dhexe ha ka dayso waxa weeyaan carabka ha ka dayso oo aynu noqono dad shaakiriina oo ilaahay ku shukriya nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man lam yashkur innaasa laa yashkur illah qofkaan dadka u mahadnaqinin ilaahayna uma mahadnaqo qof kasta wixii uu qabtay kuwa habeen iyo maalin sentariga ah ciidamada u taagan ee nabadgelyadiina ilaalinaya weli maalinna intaa ku baydheen ma tirahdaan waad ku mahadsanta soo jeedkii xalay habeen oo dhan idinka idiin soo jeedaan amnigii bay ilaalinayaan waxay qaataan kuma filla laakiin dalkoodii bay u shaqaynayaan ajarna way helayaan ducana way helayaan waxayna ka muuqan doontaa naftooda iyo awlaadooda cimrigooda ilaahay barakeeya dad qof kastoo had iyo jeer ikhlaas ku shaqeeya oo lilaahinimo ku shaqeeya bal waxaad ka eegtaa naftiisa iyo ehelkiisa iyo awlaaddiisa ka eeg anigu intaan garanaya askarta awlaadoodu had iyo jeer waxay noqdaan dad wacan waxaan isir waxa u sababa inay had iyo jeeraale dad waqafa yihiin oo u shaqaynaya qarankooda habeen iyo maalin walaalahood u soo jeeda nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi caynaani laa tamasahum annaar laba indhood naari taaban mayso oo naar geli maayaan caynun bakat min khashyati illaah il ilaahay dartii u ilmaysay wa caynun baata taxrusu fii sabiili illaah iyo ishii habeen oo dhan soo jeeday ilaahay dartii u soo jeeday ciidanku waa heegankaa ilaahay dartii u soo jeeda een adduunyo ku doonaynin ee laaluush ku rabinin ee waxba inagaga rabinin keliya amnigaaga aad ku saxaas markii wax yar dhacaan waxaad oranaysaa maxaad wax u qaban weydeen laakiin de waxaa laynaga doonayaa inaynu saacidno oo aynu ogaano hoosu ogaano ciidankeenna iyo dadka maslaxadda caamka ku fadhiya ee u shaqaynaya waa mahadsantihiin asalaamu calaykum